kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barta youtube-ka aan ku leenahay ee Glangal Media. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambalaalkana iska hilmaamin. aan ku bilownay sida aad kula socoteen barnaamijyadeeni aad nooga barateen habeenadan waxaan ka raali gelinaynaa inaan kala soo daahnay. haddaba caawa waxaan qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena caawa ku saabsanaa doonaa fanaanada lagu magacaabo Rasmi Reis oo laga duubay muuqaal sir isla markaana iyadoo dad lacag ka baadaysa ama fanaan kala wacday qadka telefoonka kula xiriirtay. haddaba sidee arrintaasi u dhacday iyo qofka ay lacagta weydiisatay fanaanada lagu magacaabo Rasmi Reis oo la sheegay inay noqotay sanadadii u dambeeyay fanaanad isbaaro u taalo baraha bulshada isla markaana dadka ka wacda qadka telefoonka kana duubta cod kadibna dadka ku wargelisa inay lacag dhiibaan haddii aysan lacagta bixin ay muuqaalada hayso iyo codadkaba ay baahi doonto. haddaba waxaa la leeyahay fanaanada Rasmi Reis ayaa waxay arrintani dhig u tahay inay dadka sida lacag uga qaadato inay iskaga bixiso nolol maalmeedkeeda iyo guriga kiradiisa. haddaba sidee arrintani ku dhacday muuqaalka ugu horeeya oo ay ku sameeyday fanaanada lagu magacaabo Sadciye Simon oo ku sugan dalka Kenya ay ka duubtay muuqaalka isla markaana ay lacag ku weydiisatay fanaanka kale ama abwaanka lagu magacaabo Daahir Calasow oo kamid ah bahda saxaafadda ama wariyaasha ku sugan dalka dibadiisa ee qurbo joogta ah ayadoo u sheegtay Sadciye Simon haddii aysan muuqaalkan ama codkan aysan u dirin Daahir Calasow oo aysan lacag ka qaadin dhan $2,000 inay muuqaalka baahi doonto isla markaana Sadciye Simon ay muuqaalka ka dhex muuqatay iyadoo madax qaawan dhalooyin shiishada iyo qalab kalena ag yaalaan ayay ku sheegtay in haddii aysan lacag ka qaadin Daahir Calasow ay muuqaalkan baahi doonto isla markaana codka iyo muuqaalkaba baraha bulshada soo dhigi doonto balse bishardiga ay tahay inay $2,000 ay bixiso ama ay ka qaado Daahir Calasow si muuqaalkan aan loo baahin balse shabakada Glangal ayaa muuqaalkaasi gacanta ku dhigtay waxayna ku tala gashay inay soo gudubto dadka Soomaaliyeed si arrintani wax uga ogaadaan maadaama khilaafkoodu uu cirka isku shareeray horaantii 2018 ay ahayd markii sidaan oo kale khilaaf xoogan u soo kala dhaxgalay fanaanada Rasmi Reis iyo Sadciye Simon oo isla markaa sidaan oo kale muuqaal looga duubay. haddaba sidee arrintaasi ku dhacday ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena intuu socdo iyo arrimo kale oo badan halka fanaanada qaar ba leeyihiin dadka qaarkood waxay ka marsayrsan tahay ninka ay Sadciye Simon guursatay isla markaana ay labada caruurta u dhashay oo Rasmi Reis la leeyahay waxayba markii hore xiriir la lahayd ninkaas lama xaqiijin karo arrintan mana hayno meel ay ku caddahay. xiriir kale oo la sameynay fanaanada Rasmi Reis iyo sidoo kale arrintan ku beeniyay inuu ninkaasi wax xiriir lahayn isla markaana ay soo dhaweynaydo markasta walaasheed jaceylkeeda cusub iyo qoyskeeda intaba. haddaba barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan arrimahaas oo kale iyo oo faahfaahsan waxaana barnaamijka aad ku dhageysan doontaan codka laga duubay fanaanadaas lagu magacaabo Rasmi Reis iyo sidoo kale xiriirka aan la sameynay oo ay noogu sheegaydo siday wax u jiraan iyo muuqaaladan wixii ka run ah ama ka been ah ayaad barnaamijka ku daawan doontaan. haddaba waa wax la yaab leh in fanaan uu waco fanaan kale isla markaana uu ka duubo cod sidoo kalena uu xujo uga dhig oo shuruud uga dhig inuu lacag bixiyo isla markaana uu ka qaado doono lacagta haddii kale uu baahi doono muuqaalada iyo codadka uu haayo intaba midaas oo la dhihi karo waxay dhabarjab ku tahay hanaanka fanka iyo sidoo kale waxay baalmarsan tahay hanaanka dhalinyarada iyo abwaanada Soomaaliyeed ay iskula xiriiraan waxaan hadda la leeyahay waxaaba shaki ku jira ama arrintani ay dib ku noqon doontaa in fanaaniintuba iskula xiriiraan qadka telefoonka haddii uu fanaankaas soo waca muuqaalna aad ku damin doontaaba iyadoo midaas ay ka baxday kalsoonidii meesha lagu qabay ayaa haddana dadka qaar waxay leeyihiin arrintani waa mid in badan soo socotay. waxaa sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijka inta uu socdo halkan uu ka baxayo arrimahaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan bal hadda waxaan idiin soo dayn doonaa muuqaalka laga duubay fanaanada lagu magacaabo Rasmi Reis ama codka laga duubay si aad u ogaato sida ay wax u jiraan iyo arrintaas oo faahfaahsan oo ay si aad ah uga falanqeyn doonto fanaanada lagu magacaabo Rasmi Reis oo la xiriirtay shabakada Glangal Media. haddaba codka waxaa ku jirta kuwa aan si
saxa loo maqli karin haddii aad fadlan codkaasi uu kusoo gaaro ka raalli ahaaw oo aadan maqlin codka oon fasiix ahayn awgiis. Sidoo kale fanaanka lagu magacaabo Nimcaan Hilaac ayaa waxaa la leeyahay sidoo kale arrintan waa uu soo farageliyey maadaama uu yahay guddoomiyaha fanaaniinta gobolka Banaadir ama Hobolada Waaberi oo ay fanaaniintani inta badan ka tirsan yihiin. waxaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan codka Nimcaan Hilaac oo arrintaasi ka hadlaya. Labada fanaanna isku dayay inuu dhexdhexaadiyo isla markaana ay labadooduba ku adkeysanayaan mid kasta xogta uu hayo inuu baahiyo. waxaase markii dambe arrintan soo farageliyey Daahir Calasow oo lacagta $2,000 bixiyey si lacagtaasna loo sheegay in shiishad lagu cabi doono ama lagu faataa baqlay doono, iyadoo Rasmi Reis sidoo kale ay leedahay gurigeenu ma yaalaan wax raashin ama wax lacag haba yaraatee. haddaba kusoo dhawow codkaas oo dhammaystiran la dhegeysto waa kan oo ay ku sheegayso Rasmi Reis. ayda ma laguma aamini karo Jawhar sawirda dubte hadda adiga macala shiishadii waa idin duubay guriga qarash la'aan ka jirto lacag la'aan ka jirto maamaha waa ogtaa gurigeena uu ka dhamaay sacdiyoy Daahir Calasow noogu diraa maamaha Daahir Calasow wuxuu taagay gabadha balwada bartaad waa balwad caadi ah waa maarad Daahir Calasow ka jabsana lacag $2,000 dan kugu helo sacdi iska caadi way shiishad la ku qabatay adoo cadeysana ka tarafada arko أنا عشقة وكوحة أنا قبلة يلعبتها أنا قعلة ودرعتها يا يانك أبا أنا عشقة وكوحة أنا قبلة يلعبتها أنا قعلة ودرعتها يا يانك أبا كقوري نفتاد أنا وأمن قراها أحيقادا مودي أكتيد أذا كقوري نفتاد أنا وأمن قراها أحيقادا مودي أنا عشقة وكوحة أنا قبلة يلعبتها قعلة ودرعتها يا يانك أبا أنا عشقة وكوحة أنا قبلة يلعبتها أنا قعلة ودرعتها يا يانك أبا أكتيد أذاك قوري نفتاد أنا وأمن قراها أحيقادا مودي أكتيد أذاك قوري نفتاد أنا وأمن قراها أحيقادا مودي أنا عشقة وكوحة أنا قبلة يلعبتها أنا قعلة ودرعتها يا يانك أبا أنا عشقة وكوحة أنا قبلة يلعبتها أنا قعلة ودرعتها يا يانك أبا أكتيد أذاك قوري نفتاد أنا وأمن قراها أحيقادا مودي أكتيد أذاك قوري نفتاد أنا وأمن قراها أحيقادا مودي
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe-ta saaro calaamadda gambaleelkana iska hilmaamin si aad ula socoto muuqaalada iyo barnaamijyada aan baahino na noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhegeysta barnaamijyadeena.